saaka warqadaan aan ku soo toosay qosol iga dhamaaday waxay ku tusinaysaa sida baraanki state u shiiday ee lagu kala tagay waxay ku tusinaysaa inaan meesha dawli iyo maamul uusan ka jirin ninkii cali guudlaa wax ahaa darajo ciidan dhiigu ka keenay waabana nacsiir rabiyaaba darajada ciidanka waa kufsay ninkaas laga qabto gaashaan la sare raggii asiga u dhadhowaa xaaladdu markay xumaatay war anigu meeshaan maanta kadib cambuulo ma jirto yiri maanta kadib cambuulo ma jirto nin walba intee ka qaraabo kartaa awal cambuuladiisa kula joogay nin walba darajo soo qortay tan UN ka mushaaraadka oo booliska maamul goboleedyada UN ka bixiye ayaga gorba dhaqaale ku bixi doonay xariiq ka dhacday waa la isaga xariiq asagana waa u xariiq waxa weeye marka waxay sii xarxarteen meel walow ay cambuulada ka sii heli karaan ninkii cali guudlaawe state-kan uga dambeeya marka dhibaato haysato waxa wareeri doono rag garaada leh oo waxa waaye wada gaashaanlayaal sare soo wada tuban doono oo nin walba dhihi waxa waaye ciidan ma leh gaashaanlayaasha waxay dhan yihiin waxa waaye dhowr boqol ciidanna ma leh dhibaatadaas haysa doonto sida u xalli doono aleyska alf wax badan oo kale sidaas oo kale loogu dheelo dawliga waa jira hadhowdii waa dhibaato hortaalo qofkii madaxweyne ka noqdo meesha gaashaan la sare yaa cornel Abdullahi Salaad cornel afjab xataa waxa u maleynaa warqadiisa inuu hoos u qaatay oo mid cornel uu haysto waa dhowdii uu la soo shirtagi doona aniga cornel waa la magac walahi ninkaas wasiir karoore waa qofka narta aad uga naxay waa sababtu waxay tahay wasaaradda uu hadda joogo ee wasaaradda arrimaha gudaha state-ka ninka asaga ugu horeeyay ee joogi jiray waxay ahayd wasaaradda kaliya ee madaxtooyada ka dhaqaale badan ay ahayd wasaaradda madaxtooyada ka dhaadhac badan ay ahayd wasaaradda loo shaxaad tagay ahayd wasaaradda ninkii wasiirka ka ahaa waxa waayo uu ka seef gareystay wixiisa guriga ka dhistay wasaaraddu waxay ahaaday iska da'aysay ahayd haddana kama qaday 4 sano oo uu joogay kama qaday waa ka cambuuladu iska gaadi jiray maantana waa kaasa waxaad sii beelato bal kan ka raadsalayr waxa weeye baraanki state ninka madaxweynaha uga dambeyn doono dhib badan haystay ha ku soo dhawaad ogeysiis dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed waxaa la ogeysiinayaa in macadka facaweyn ee albayaan ee xifdinta quraanka kariimka oo idinkaga furay xaruntiisa lamaad isgooska baar wax masaajidka Nasuudiin ka soo horjeedka Boqol Tower haddaba cid allaala cidii daneynayso waxbarasho tayo leh hala xiriirto nambarada ku qoran shaashada